Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka ugu sarreeya caalamka oo ay ka jiraan dhimashada hooyada iyo dhallaanka. Si loo yareeyo khataraha caafimaad waxaa muhiim ah in la xoojiyo daryeelka caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka. Isbitaalka Yardameeli oo ka duulaya ahdaafta loo aasaasay iyo baahida caafimaad oo ay wajahayaan hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed ayaa bilaabay barnaamijka daryeelka boqolka hooyo oo ureyda ah ayagoo loogu adeegayo si lacag la'aan ah helayana adeeg caafimaad oo dhameystiran. Markii aan ogaaday in aan uur leeyahay waxa igu dhalatay walwal badan oo halkii aan ka heli lahaa daryeel caafimaad oo bilaash ah. Waxaa ka war helay in isbitaalka Yardameeli in uu sanad kasta fursad siiyo hooyooyinka uurka leh aan awoodin qarashaadka inay iska bixiyaan. Barnaamijkan ayaa iga caawiyay in aan helo daryeel caafimaad oo bilaash ah. Isbitaalka waxaan u imaaday xaaskii oo keenay howlo caafimaad boqolka haween Ilaahay maaragtay nasiibkooda ku daray. insha Allah maaragtay isbitaalkan waa ku mahadsan yahay. saas awligeedana saaf u imaanay xaaskaygaana keenay waan ku mahadsan isbitaalka Yardameeli. Daryeelka caafimaadka ee hooyooyinka kaliya kuma eka gudaha isbitaalka Yardameeli waxa uu gaarayaa guryaha qoysaska ka faa'iideysanaya barnaamijkan halkaas oo hooyo kasta loogu sameeyo baaritaano, la talin caafimaad iyo daryeel joogto ah. iyadoo howlwadeennada caafimaadka ee isbitaalka ay si bille ah u booqdaan hooyooyinka. agaasimaha guud ee isbitaalka Yardameeli ayaa xoojinaya himilada isbitaalka loo aasaasay. sidoo kale agaasimuhu wuxuu iftiiminayaa kaalinta gacan celinta bulshada taas oo u suurtagelinaysa in la hindiso mashruucan. bismillah waxaan si weyn ugu faraxsanahay inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno saameynta iyo guulaha barnaamijka daryeelka hooyada iyo dhallaanka sanadkii saddexaad. waa barnaamij sanadle ah oo lagu daryeelo 100 hooyo oo uur leh ilaa ay ka umulaan isla markaana ubadkooda ka gaaraan 1 sano si lacag la'aan ah. runtii barnaamijkan waxa uu si buuxda ugu turjumayaa himilada loo aasaasay isbitaalka Yardameeli ee ah daryeelidda iyo badbaadinta hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed kuwooda taagta daran. dhanka caafimaadka saameynta barnaamijkan waxa uu yareeyay heerka dhimashada hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed. guulahan ma aysan ku imaanin si sahlan, waa natiijo ka dhalatay hufnaan shaqo, qorshe caafimaad oo cilmi ku dhisan iyo shaqaale u taagan adeegga bulshada. barnaamij aad u qiimo badan oo la yiraahdo 101 hooyo ay maaragtay aan ka soo qaadnay qaybaha kala duwan ama degmooyinka gobolka Banaadir. hooyooyinkaas waxaan hawsha loo bilaabay 3 bishii 2025 marka aan qabanaynay baaris loo sameeyay waqtiga ama cimriga uurka wuxuu ka bilaabanayay 8 toddobaad ilaa 12 toddobaad. waqtigaas oo aan u dooranay inay tahay waqtiga ugu muhiimsan ee laga hortagi karo hadday jiraan dhibaatooyin caafimaad ama uurka ilmaha ay ka jiraan. inta marka laga soo gudbo hooyo kastoo Soomaaliyeed oo barnaamijkan ka mid ah 7 jeer ayay waxay la kulantay kolba takhtarada cudurrada haweenka ee qaabilsan arrimaheeda. 7 jeer ayay la kulmeen. waxaa kaloo jirta hooyo kasto iyo qoyska iyo aabaha 6 jeer ayaa isbitaalka Yardameeli hoolka weyn isbitaalka waxaan ugu qabanay baraarujin caafimaad. baraarujintaas oo ku saabsaneed faa'iidada ay leedahay daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, cudurrada si loo kala qaado iyo barnaamijyo noocaas. 6 jeerna waxaa loogu qabtay markale isbitaalka Yardameeli. waxaa kaloo ku xigtay hooyo kastoo Soomaaliyeed 4 jeer ayaa gurigeeda loogu tagay, waxaana tiim caafimaad ama koox caafimaad isbitaalka ka socoto halkaa ay tagayeen ayagoo baraarujin caafimaad qoyska u sameynayay. hooyadana waxyaabaha loo yaqaano vital signs ama kacabirka dhiigga, miisaanka iyo waxyaabo fara badan halkaa ay ka sameynayeen. hooyo kasta oo halkan sheekadeeda ka dhageysatay waxa ay marag fur u tahay guulaha barnaamijka iyo daryeelka iyo ka warqabka joogtada ah ee loo sameeyay. maanta waxaa soo booqday isbitaalka Yardameeli soo booqdeen inay caafimaadkayga ogaadaan oo dhiigayga iyo wixiyga iyo ilgayga inay soo fiiriyaan ee caafimaadkooda ogaadaan inay ku mahadsan yihiin. magacayga Nimco waxaan ka mid tahay hooyooyinka oo fursad u helay inay ka faa'iideystaan mashruuca daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalka Yardameeli. anigoo walwal ka qabay halkaan ka heli lahaa daryeel caafimaad oo bilaash ah. intaan uurka lahaa waxaa la ii sameeyay
daryeel caafimaadka iyo baaritaano bilaash ah. Sidoo kale waxaa la igu imaaday gurigeyga waxaa la ii sameeyay daryeel caafimaad ah. Alxamdulillah waxaan xalay si nabad ugu umulay isbitaalka Dameeri. Alxamdulillah waxaa u mahadcelinayaa isbitaalka Dameeri maamulka iyo shaqaalaha oo si wanaagsan oo lacag la'aan ah igu daryeelay caafimaadkeyga. بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaa la soo booqday xaafadeyda isbitaalka Dameeri aad iyo aad u mahadsanyihiin waxaa la sameeyay daryeel caafimaad la sameeyay meeshaan aan ugu mahadcelinayaa shaqaalaha iyo maamulka kulli meeshaan ugu mahadcelinayaa aad iyo aad u mahadsanyihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa la igu imaaday gurigeyga anigoo joogo waa la soo booqday si loo baaro caafimaadkeyga xaaladeyda loola socdo. maasha Allah isbitaalka Dameeri aad u mahadsan yihiin daryeelkan weyn ee ii fidiyeen man ka filanaynin runtii ilaa xadkan inay daryeelayaan. maasha Allah ilaahay ama had iskale ma hadaasan ay sugnaatay. الحمد لله شكر رب العالمين لا ما هذا اسكله حالي waxaan dhalay 2 saameed wiilan dhalay alxamdulillah si caafimaadaan ku dhalay milisooyinkan waa igu dadaaleen ma sha Allah khayr ila asiyo wallahi ma qiyaasi karo horta farxadeeda baa ku sheegay alxamdulillah daryeel aad weyn ah hela waxaan u mahadcelinayaa isbitaalka Dameeri shaqaalihiisa oo dhan qaasatan umulisooyinka marka hore idin sheegay tirada hooyooyinka waxay ahaayeen 101 63 hooyo kamida horay wax dhicisa oo maysan dhalin 38 hooyo ayaa horay waxay u soo dhaleen ilmo dhicis ah. daryeelka caafimaad markii loo fidiyay waxa halka nooga soo baxday ama natiijada ay noqotay 2 hooyo kaliya ayaa 2 dhicis ma aragtay dhalay halka 36 hooyo oo markii hore dhicis dhalay ay caruur nabad qabto oo caafimaad qabto ay dhaleen. waxa kaloo jirta 33 hooyo in ilmo meeyda ay hore u soo dhaleen daryeelka caafimaad markii loo fidiyay waxay noqdeen in 5 hooyo kaliya ay mar labaad ilmo meeyda ay dhalaan halka 28 caruurna ay caadi u dhasheen ayagoo nool. caruurtaas hadda waxa u socdo talaal caafimaad oo joogto ah kolba waqtiga loogu talagalay ay qaataan ayaa maaragtay u socoto. wakiilka hay'adda Dameeri ee isbitaalka ayaa ka warbixinaya sida ay uga go'an tahay taageerida bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka ka faa'iideystay mashruucan oo aan maanta ku faanayno horumarkiisa iyo saameyntiisa. hay'adda Dameeri waxay muddo dheer ka shaqeynaysay taageeridda dadka nugul ee Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka iyo carruurta. barnaamijka daryeelka 100 haween ee danyarta ah waa barnaamij sanadle ah
waxaana loogu talagalay inuu noqdo albaab hooyooyinka danyarta ahi ay ku helaan daryeel caafimaad oo taya leh iyadoo aan wax qarasha la weydiin ilaa iyo ilmahoodu ay ka korayaan. waxaa naga go-an inaan sii wadno taageeridda bulshada Soomaaliyeed si gaar ah hooyooyinka iyo carruurta Soomaaliyeed. guushan ma aha mid Yardameeli keliya ay leedahay ee waa guusha bulshada Soomaaliyeed oo dhan. Hastanemize gidermeye çalıştık. Onlara eğitimleri, onların ilaç ihtiyaçları ve masrafları da dahil olmak üzere onlarla beraber çok güzel bir proje gerçekleştirdik. taageerada joogtada ah ee hay-adda Manhal ee isbitaalka Yardameeli waxa ay door weyn ka qaadataa horumarinta adeegyada caafimaad ee bulshada, gaar ahaan gacansiinta dadka nugul oo u baahan daryeel iyo garab istaag joogto ah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعبد الفتاح حسن أحمد شمبرو مدح فلنتا جمعية منهل سمافالكا. جمعية منهل waxay ka mid tahay hay-adaha samafalka ee ka howlgala dalkeena Soomaaliyeed. waxaa la aasaasay 1996 ilaa iyo waqtiga ilaa iyo hadda la joogo waxay ka shaqeysaa adeega bulshada, arrimaha gargaarka iyo arrimaha horumarinta, haday noqon lahayd biyaha, waxbarashada, caafimaadka, beeraha iyo wixii la mid ah. muddooyinkii ay shaqeynaysay arrimaha ugu muhiimsan ee hay-adda xoogga saartay waxaa ka mid ahaa arrimaha caafimaadka, iyadoo ka shaqeysay arrimo badan oo ay ka mid yihiin in dadka indhaha loo fiiqo, dadka cunaha iyo quumanka loo qalo lacag la'aan, dadka qaarkood oo loo fuliyo camaliyaad ama qaliimo lacag la'aan ah. sidoo kale hay-adda waxay qabataa barnaamijyo loogu magac daray al-mukhayamaat al-tibbiya oo ah dadka degan magaalada banaankeeda iyo maxaa la yiraahdaa kaamamka in loo gurmado oo halkaasi adeeg caafimaad lagu gaarsiiyo. hase ahaatee barnaamijka ugu muhiimsan barnaamijyada caafimaadka waxaa ka mid ah barnaamijka boqolka haween. barnaamijkan oo ahaa tajribo ama tijaabo cusub oo run ahaantii wax badan ka bedelay aragtidii caafimaad ee jamciyadda Manhal iyo saaxiibadeed ay ku shaqeyn jireen. maxaa yeelay hooyada iyo dhallaanka waa qalbiga ama wadnaha bulshada. haddii hooyada iyo dhallaanka la badbaadiyo, bulshadii ayaa badbaadayso. hooyada iyo dhallaanka hadday dayacmaana, bulshadii ayaa dayacmayso. iyadoo aragtidaas laga duulayo ayaa kulankii ay isugu yimaadeen boorka Manhal iyo Yardameeli waxaa la isla gartay in sanad walba la qabto barnaamijkan badbaadinta ama muxuu ahaaye in la badbaadiyo hooyada iyo dhallaanka. run ahaantii waxaan u magac daray barnaamijkaasi waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiican mashruuc alxayaat, yacni waa barnaamijka lagu badbaadinayo bulshadeenna guud ahaan. barnaamijkaasi marka wuu najaxay, wuxuu noqday barnaamij sida ay dhaqaatiirtu ku warbixiyeen iyo maamulka isbitaalka aad maqlayseen. waa barnaamij najaxay oo hooyooyin badan iyo caruur badanna lagu badbaadiyey. ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkan mahadcelin iyo duco uga soo jeediyo fariiqii ama kooxdii ka howlgalaysay barnaamijkaas oo ay ugu horeeyaan maamulka iyo madaxda isbitaalka iyo gaar ahaan dhaqaatiirtii ku howlaneed barnaamijkaasi dabagalkiisa, fulintiisa ilaa iyo hooyada ay ka dhasho. waxaan ugu baaqayaa wasaaradda caafimaadka iyo dadka ku howlan caafimaadka bulshada qaybaheeda kala duwan in barnaamijkan oo kale la taabageliyo, la garab istaago si hooyada iyo dhallaanka loo badbaadiyo. taa macnaheedana waxaa weeye bulshadeenna oo aan badbaadino. waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiican. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. sanad kasta barnaamijkan waxa uu daryeel caafimaad oo buuxa u fidiyaa 100 haween oo uur leh oo danyar ah, kuwaas oo ku kala nool magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda laga soo bilaabo xilliga uurka ilaa dhalmada. sidoo kalena waxaa la daryeelaa carruurtoodu ilaa ay ka gaarayaan muddo sanad ah. annaga oo ka duulina himiilada iyo ahdaafteena fog ee isbitaalka Yardameeli waxaan sii wadi doonaa taageeridda iyo gacan celinta bulshada Soomaaliyeed si gaar ah barnaamijkeena daryeelka hooyada iyo dhallaanka.